بسم الله الرحمن الرحيم wuxuu ku kaadsaabsan yahay liqaagaanu caddayn la caddaynayo waraysi aan horey u siiyey joornaalka jariidadda alwadan ee sacuudiga ka soo baxda maalintii 26 ay ahayd taariikhdu maanta oo 29 la nashriyey oo la faafiyey ayaan maanta jecelahay warar ku yimid halkaa lagu qoray oo fara badan oo dheeraad ku ahaa warkii aan anigu nashriyey ama waraysiga laga qaaday inaan halkan ka caddeeyo inaan waxba ka jirin walaalayaal sidaad og tihiin annagu Soomaali haddaan nahay waxaan nahay waddan Carbeed oo muslim ah shacabkeenuna waa dad lagu yaqaano dhexdhexaadnimada iyo deganaanshada iyo inaysan jeclayn inay mar walba ay dad kaleeto ay wax ka sheegaan ama ay galaan shu'uuntooda hoose dowladda Soomaaliya oo hadda jirtana sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo madaxda ka yahayna iyo xukuumadda Xasan Cali Khayr ra'iisul wasaaraha ka yahay waxa ay qaadatay anuguna aan la taliyaha madaxweynaha ahay siyaasad muctadilo ah oo dhexdhexaadnimo ah oo ah in ay maadaama marxalad yagle lagu jiro inay dhammaan dowladaha caalamka cilaaqada wanaagsan ay la samaysato dowlad walbana inta iyaduba ay diyaar tahay inay Soomaaliya la tacaawunto in lamida inay la tacaawunto soona dhaweyso siyaasatu fatxil abwaab wax la yiraahdo siyaasadda albaabada furan oo soo dhaweynta ku dhisan iyo tacaawunka ay qaadatay heer sare ayayna ka gaartay marka waraysigaas su'aalaha aniga la weydiiyey waxay ahaayeen 4 su'aalood taqriiban ama 5 su'aalood iska ahayd su-aasha koowaad waxay ahaaday oo wariyaha ay waraysanaya aad xoogga u saarayey waraysigii uu la yeeshay jariidadda New York Times ay la yeelatay ninkii qadariga ahaa sida la sheegay iyo safiirka halkan dhex maray warkii saas ahaa oo reer qadar iyo dhex maray joornaalkaas weyn ee Mareykanka uu leeyahay iyo jawaabtii dowladda Soomaaliyeed ay ka bixisay markaas timid waxay raadinayeen marka dabcan ama ay weydiiyeen arrintaas iyada ah si aad u aragtaan waxaan ugu jawaabay annaga haddana dowladda Soomaaliya jawaabta rasmiga ah ee Soomaalida waxaa bixiyey wasiirka arrimaha dibadda taas ayaana jawaabteedu ay tahay waxay su'aal kale oo faraca oo la yiraahdo su'aal mutaabaca ama su'aal daba dhiga ay ka dhigeen waxay yiraahdeen laakiin waxaa la leeyahay amniga Soomaaliya waxaa faragelin ku haya dowladaha qaarkood sidii Qatar oo kaleeto oo waxay soo qaateen miisaal Maxamed Saciid Atam inuu martiqaad oo ugu joogo oo la ogyahay inuu kamid ahay raggii hore shabaabka kamid ahay rag kaleetana cilaaqaadii la leedahay ila aakhiri arrintaas waxaan uga jawaabay horta ninkaas odaga waxaan iri dowladdan hadda joogta xilligeeda ma ahna dowladdii ka horeysay ayaa martiqaadkaas meesha laga siiyey wuxuuna ku tegey arrimo oo caalamku isku wada ogaa oo xataa dowladaha waaweyn reer galbeedka iyo UN-ka iyo kulli xogteeda ay wax ka ogaayeen dowladda xilligaas jirtay baa faahfaahinteeda haysa marka wax hadda dowladdan xilligeeda dhaca hadda jirtana ma ahan midda labaadna ninkaas odaga waa ka soo baxay afkaartaas oo si rasmi ah ayuu dowladda Soomaaliya TV-yaasha qaranka uga sheegay inay nimankaas ay khaldanaayeen dowladda Soomaaliya waa ka aqbashay sidaa daraaddeed anigu marna ma arko in qadar lagu tuhmo in ay tahay dowlad ilaalisa ama dacmisa waxaan argagixisada la yiraahdo Soomaaliyana cilaaqada wanaagsan bay la leedahay tacaawun waxaan kala dhaxeeya dhammaan jawaanibta oo dhan sidaa daraaddeed arrintaas sida ah waxaa nasiib darro ah waan sheegi doonaa in si kale loo dhigay qodobka saddexaad oo la weydiiyeen wuxuu ahaa xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudiga ka dhaxeeyay saameyn ma ku yeeshay maadaama Soomaaliya lagu tiriyo inay dhinaca qadar ay u bayrtay arrintaasna marka hore waxaan nafiyey in Soomaaliya dhinac ay u bayrtay waxaan iri Soomaaliya siyaasad dhexdhexaad ay ka qaadatay khaliijka oo siman cilaaqada wanaagsan bayna Sacuudiga la leedahay sida qadar bay u leedahay dhammaan wadamada khaliijkana way la leedahay marka sida daraaddeed taa horta lama dhihi karo dhinac ay u leexatay siyaasad dhexdhexaad ay ku taagan tahay dhinaca kaleetana Sacuudigan si gaar ah waxaan uga hadlay inay tahay dowlad weyn oo cimlaaqa oo cilaaqaad taariikhiga la dhaxay jiray dowladda maanta jirta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajona oo ilaa ugu yaraan 3 jeer oo safar ku tagay rasmi ah oo safarka ugu badnaayo dibadda ugu baxay dowlad uu tagaba iyada uu ku tagay marka dalalka khaliijka iyada ayaa ugu badneed iyo dalalka carabta oo dhan sidaa daraaddeed cilaaqaad wanaagsan baana kala dhaxeeya Malik Salmaan iyo waliga cahdi Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha ka dhaxeeya dowladda Soomaaliyana dacmi rasmi ah ayay dacmisay oo meelo badan taabtay oo looga mahad celinayo sidaa daraaddeed ma jirto cilaaqa arrinta ah in dowladda Sacuudiga ee Soomaaliya ay xurguf u dhaxayso laajil xiriirka Soomaaliya qadar ka dhaxeeya siyaasaddaas oo maxaawirta ah oo kala yani in dowladaha qaar lagu biiro qaarna la cadaawaysto Soomaaliya ma taqaanba siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda ku hagaagay waxa weeye siyaasad dhexdhexaadnimo ku dhisan iyo in dhammaan dowladaha si siman cilaaqaad loola samaysto walaalaha ah ee khaliijka iyo kuwa carabta dhammaantoodba waxaan caddeynayaa marka inta wixii ka baxsan 5taas arrimood oo aan saas uga jawaabay in aysan aniga war lay tirin kara aysan ahayn munaasabna aysan ahayn xiriirka Sacuudiga iyo Soomaaliya ee walaalnimada ku dhisanna uma baahna in nin wariyaahu oo xoogo
hadalla uu ku dardaro waraysi uu naashnaasho uma baahno annagana maanta uma baahnin inaan dowlad khaliija ah oo sida qatar oo kaleeto ah walaalo aan nahay oo soomaaliya wax badan u tarta in annaga warna loo tiiriyey lagu ijaafeeyo munaasab ma aha mana aaminsanin annaga dhammaan riyaad iyo dawxa iyo abudabay iyo kuwait iyo baxrayn manaama iyo maarata masqad kulligood waa cawaasim khaliijiya oo walaalaheen ah oo wada jecelnahay waxayna la mid yihiin muqdisho marka haba yaraatee wax xasaasiye ah dowladda soomaaliya kama qabto intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gebagabeeyo wixii dheeraad ahaa oo intaas ka baxsanna anigu shaqana kuma lihi mana laga tiirin karo waana ka xumahay waxaana rajaynayaa warka naska saxa ah oo kan ah oo ah in cilaaqaadka soomaaliya ee wadamada khaliijkan uu yahay mid sugan dowladda qadarna anagu wax tuhmaa oo irhaab ku saabsan aanan u hayn waxa joornaalada maraykanku ay qoreenna annaga aan waxbana laka weydiinayn soomaaliyana iyo jeceshahay inay dhexdhexaadnimadaas ilaashato uguna baaqayno wadamada khaliijka iyo wadamada carabta iyo kuwa caalamkaba inay soomaaliya ay marxaladda maanta oo yagleelka ay ku jirto ay garab si dhaba u garab istaagaan khilaafaadka dhexdooda iyo waxyaabaha u dhexeeyana aan loo soo rarin soomaaliya ila soomaaliya uma baahne ayadaaba teeda la tacaalayse taasna waa kusoo gebagabeynaya